atrishada Ramba mid ka mid ah atrishadii ugu caansan ee ka soo muuqan jiray aflaanta Bollywood ka horaantii 90-meeyadii ilaa dhamaadkii 90-meeyadii haddaba waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin kooban oo u gaar ah atrishadan balse intaan u gudgalin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa janaal ku soo biirto muuqaalka dadka ee shalaag inoo saarsi share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal atrishada Ramba waa mid ka mid ah hablihii ka soo muuqan jiray aflaanta ugu caansan ee Bollywood ka horaantii 90-meeyadii ilaa dhamaadkii 90-meeyadii atriishadan waxay dhalatay markaan eegnana 5 Juun sanadii 1976 da ahaan waa 48 jir waxayna ku dhalatay magaalo lagu magacaabo Vijayawada oo ka tirsan gobolka Andhra Pradesh ee dalka India markaan eegnana atriishadan waxay fanka Hindi ku soo biirtay iyadoo 16 jir ah filimkeedii ugu horeeyay waa filim Telugu ah oo lagu magacaabo Awkadi Adagu laakiin filimkeedii ugu horeeyay ee Bollywood ah waa filimka caanka ah jilaad kaas oo hogaamiyaha ka ahaa Mithun Chakraborty atriishadan Ramba waxay ka soo muuqatay aflaam caan ah Soomaalida qaar aad u xiiseeyaan daawashadooda aflaamta ka soo muuqatana waxa laga xusi karaa filimka caanka ah Jidwa kaas oo Soomaalida u yaqaanaan laba Salmaan aflaamta kale waxa kamid ah filimka caanka ah Badhan Salmaan ayaa hogaamiyaha ka ah Junga oo Ajay Devgan sidoo kale Mithun Chakraborty hogaamiyaha kooda yihiin iyo sidoo kale filimka caanka ah ee lagu magacaabo Barvali ay ka soo muuqatay atriishadan aflaamta kale waxa laga xusi karaa filimka caanka ah Kadod kaas oo Soomaalida qaarna u yaqaanaan Balwan shanta gabdhood markaan eegna atriishadan iyo xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqadu horeysa waxa la leeyahay October sanadii 2002 waxay shil gaari ku galeen iyadii caruurteeda magaalo lagu magacaabo Ontario oo ka tirsan dalka Canada xaqiiqooyin kale waxa qayb ka ah waxa la leeyahay taageerooyin u tahay jilayaasha isdalay kala ah jiran Jeevi iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Ram Jaran xaqiiqadu u dambeysay atriishadan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan waxa la leeyahay atriishadan waxay kamid tahay atriishadaha farakutiriska kuwaas oo sameeyay aflaamta kala lahjada sidaan reed kugu sheegay atriishadan waxay sameysay dhowr aflaam kuwaas oo kala lahjada hadii ahaan lay Telugu Tamil Hindi Malayalam Kannada Bhojpuri sidoo kale Bengali atriishadan filimkeedii ugu dambeeyay ka soo muuqatana waxa lagu magacaabo Film Star waa film Malayalam waxa la daawaday sanadii 2011 atriishadan hadda waa iska guri joogto ama reerkeeda ay iska dhaqataa laakiin 90-meeyadii waxay kamid tahay atriishadii ugu caansan ee aflaamta Bollywood ka soo muuqan jiray haddaba intaas ayaan soo gabagabeeyaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinkii kooban kala wadaagay atriishada caanka ah Ramba walaal haddii aad ka hesho muuqaalka laag inoo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena